haddii aad tahay qof markuu xanaaqo dagaal badan alaabaha jijibiya amaba aflagaado la qarxa waa calaamad muujinaysa inaad la dhibaatoonayso xaaladda lagu magacaabo intermittent explosive disorder. haddaba maxaa sababa? badanaa waxaa sababa laba xaaladood. kow, qofka oo ku soo koray deegaan ama guri dagaal iyo rabsho badan, jirdilka iyo aflagaadadana loo arkay wax caadi ah. labo, inuu qofka inuu dhaxlo. haddii labadaada waalid midkood uu la dhibaatoonayay xaaladdaas, waxaa laga yaabaa in adigana hiddo ahaan kugu soo gudbo. sidoo kale cudurkan wuxuu ku dhici karaa dadka carruurnimadooda horay ula soo kulmay xadgudub jireed ama dhacdooyin naxdin leh. sidoo kale waxaa u nugul dadka neceb dhexgalka bulshada iyo ilmaha la dhibaatoonaya cudurka loo yaqaano ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oo ah dadka bilaa-attentionka ah ama dhugtooda yar tahay, habdhaqankooduna aan xakamayn karin, si kale waxay doonaan iska sameeya. qofka la dhibaatoonaya wuxuu sidoo kale u nugul yahay family problems sida furiin, shaqada oo laga ceeriyo, shil gaari, dhibaato xagga maskaxda sida depression iyo stress, dhibaato xagga jirka, dhiigkar, macaan, wadna xanuun iyo wixii la mid ah. haddaba sidee loola tacaali karaa? kow, inaad badiso quraan akhriska iyo dikriga eebbe, waayo labaduba waxay dejiyaan qalbiga. labo, inaad la kulanto dhakhtar ku takhasusay arrimahaasi, sidoo kalena aad qaadato dawooyinka uu kuu qoro. saddex, inaad baraatikayso farsamooyinka maskax dejinta, sida inaad dhowr daqiiqo maalin walba meel fadhiisato oo neefta si degan u qaadato una soo dayso, aadna dhegaysato neeftaada. afar, inaad horumariso fikirkaaga, tusaale ahaan marka aad la kulanto xaalad cara ah inaad si caqli ah u fikirto beddelkii aad raaci lahayd emotionkaaga. shan, inaad samaysato qorshe aadan wax falcelin ah ku samaynayn markuu qof kugu dhaho ama uu kugu sameeyo wax aadan ka helin. lix, inaad iska ilaaliso wax kasta ama meel kasta oo aad kala kulmayso wax ku caragelinaya. toddoba, iska ilaali mukhaadaraadka. siddeed, xasuusnow dareennada gudaha ka imaanaya sida xanaaqa iyo farxadda, adiga ayaa mas-uulka ah. ha u ogolaan cid dibadda kaa joogta inay sidee doonta kaa yeesho.